بسم الله الرحمن الرحيم. marka horeysa waa arintaas sheegaysay muxuu ahaa xukuumadda la magacaabay iminka annaga haddaan baarlamaanka nahay waxaan matalnaa shacbiga Soomaaliyeed si maaragtay shacbiga uu qabayo madaxweynaha farmaajo u dooranay annagoo ka fiirinay mataqaanaa shacbiga Soomaaliyeed oo annaga maaragtay aan matalno ayaan ku dooranay boqolkiiba boqol waa aragtay farmaajo iyo ra'iisul wasaarihii ku magacaabay taas waxay tusaysaa niyad wanaagii oo maaragtay baarlamaanka hayo xukuumad tayo leh xukuumad mataqaanaayo oo tii hore dhaanto ayaanu mataqaanaayo boqolkiiba boqol ku support garaynay shacbiga mataqaanaa annaga masalayno wixii ay rabaan ku baarlamaankaas ku ansixinay waxaana si darro ah shacbiga Soomaaliyeed waxay ka sugayeen xukuumad oo ku dhisan heerarkii lagu heshiiyey ilaa arta oo lix iyo 10 sano aan joogno hal mataqaanaa sax beelood loo qaybshay santa beelood si kasta ha ahaatee waxa weligeed balans gareynaysay ummadda Soomaaliyeed siday rabtay waxay ku heshiisay in sidaan loo helo si darra laba arrin oo xukuumaddan Ali Khayre ku dhawaaqay labadaba kama hayno marka horeyso heshiiskii ahaa awood qaybsigii ayuu meel ka dhacay oo ah sidii maaragtay shacbiga Soomaaliyeed hadii weynada ka qabtay dhinaca cadaaladda oo ay tahay wixii lagu jiiyay in meeshii la marsiiyo waxaad moodaa in qaar beelaha ka mid ah shanta beelood in sarbulsi lagu sameeyay dad kale mataqaanaayo gurub kalena mataqaanaayo qaybta ay lahaayeen wax laga dhacay marka haddaan annaga shacbiga Soomaaliyeed waan masalayno waxaan u malaynayaa arrintaas waxaan dhahnay ka fiirso intaadan baarlamaanka aadan keenin waayo baarlamaan ra'yiga isaga heshiiska Soomaaliyeed waa intaasoo sano oo heshiiska oo ah in muxuu ahaa awood qaybsiga oo sidaa lagu wado ayaanu annaga dooraynaa waxaan kale dooraynaa shacbiga Soomaaliyeed wixii ay rabeen oo ay tahay isbedel tayo leh isbedel ka baxsan tayo leh xukuumad mataqaanaa lala xisaabtami karo oo haddeeba ay ku jirto mataqaanaayo calaamatu su'aal ama isweydiin hebel iyo hebelaayo iyo magarad laakiin waxaanu ka fiirsanaynaa labada qodob muhiimka ah dhinaca tayaha iyo dhinaca awood qaybsiga ayaa baarlamaanka Soomaaliyeed oo intaasoo xildhibaan isku raacay boqol iyo wax la jiro oo dhaarsan iyo intii mataqaanaayo maanta u dhaarsan marka nasiixadan waqti baa qabtaa ilaa 30 in mataqaanaayo Soomaalida ku heshiisay hal lagu arko ummadda mooteena waa tahay waa aragtay mataqaanaa xildhibaanada anigaan ka mid ahay aanu codsanay inuu prime ministerka sidaan hore mataqaanaayo isaga u ogolaanay xukuumaddiisa inaan u ogolaano ay ku xiran tahay awood qaybsiga iyo tayada xukuumadda waa tahay xildhibaane bal waxaad sheegtay adiga iyo xildhibaano kale aragtidaas ku aadan in xukuumadda lagu noqdo aad qabtaan bal tira ahaan xildhibaanadaas aragtidaas kula qabto ee arrinkan haatan ka dhidhinaysa waa imisa inta hadda qolin shawiya inta hadda mataqaana muxuu ahaa aan ognahay ilaa lixdan mataqaana waxay diyaar u yihiin isku ra'yi yihiin in arrintaas ayada ahayd labada soo qaato oo muxuu ahaa dhinaca bursiga mataqaanaayo ka haro oo uu sameeyo si siman
heshiiskii mataqaanaa ummadda soomaaliyeed oo ay ku heshiisay oo ay intaasoo sano siyaasadda soomaaliyeed mataqaanaayo dheelitirkiisa iyo muxuu ahaa dhinaca dibisiinta iyo dhinaca kasta mataqaana qaybtaan u ka qaatay haddii taa mataqaanaa la baalmarana waxaan u arkaynaa inay hoogaa maaragtay xukuumaddaas baarlamaanka haddii la keenana inayan ku guulaysan haddii ayna ku guulaysatana oo si fiican uga shaqayn karin innaga ummaddaas shacbiga soomaaliyeed aan maqalnaa wixii dib u keenaayo iyo wixii sharci intaas waa tahay dad baa qaba fikir ku aadan xildhibaanada haatan aragtidan ka qaba xukuumaddan cusub inay iyagu iska waayeen liiskii arrinkaa maxaa ka jira maya waayidda maaragtay anigu taa muu arko waayo kolley muxuu ahaa 300 oo xildhibaanada ah kama wada naqanayaan ola naqan lahayd laakiin wixii xildhibaanada wixii banaanka ka yimaada ayagoo backgroundkooda soomaali isnaqaan annagoo mataqaanaayo mataqaanaa dhinaca tayaha iyo dhinaca maaragtay oo awqeysiga aan arkayn maxaa diidaayo in arrintaas laga saxo waa tahay marka ma isku daydeen in si gaar aad ula kulantaan ra-iisul wasaaraha idinkoo xildhibaanadiina ah oo arrinkanna aad kala hadashaan maalin walba waa la arkay il iyo ka badanba intaasoo mataqaanaayo loo sheegaayo inuu mataqaanaayo ay qaato wixii oo talooyin ah shacbiga soomaaliyeed bil u dhow oo ay siinayso mataqaanaa hadduu qaadan waayo iminka qoraal baan siinay inuu ayaamaha ka harsan intuu baarlamaanka keeni lahaa in arrintaa wax ka soco haddii uu isaga mataqaanaa madaxadegna mataqaanaayo ku kaco keenana wixii baarlamaankaasi ka helo ayuu leeyahay waa taa ugu dambeyn xildhibaane baaqa ama talada ugu dambeysa aad jeedinaysid maxay tahay caawa talada ugu dambeeya ay tahay waxa weeyaan mudane prime minister waan 100% baan kugu ansixinay waxaan diyaar u nahay in xukuumad oo mataqaanaa awood qaybsigeeda mataqaanaa doortay tayadii oo wasiiradahana aad tixgelisay taasaa mataqaanaa anigu ii tahay inaan intii maqlayso iyo intii mataqaanaa arrintaas qayb ka qaadan karto oo ay tahay inuu xukuumaddiisa wax ka bedelo oo aysan mataqaanaa sarbursi qorana u sameynin tayadiina mataqaanaayo xoogiisa saaro ayaa talaya ah